السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن نجيب بريها وكلا مغنين إن أصحابتي هورا يا أصحابتي الدنبابا وإن السلامية عادي بين السلامية سلام كدب إن بريها واسكا مشغول سنة وانسكا يرا مغنا وحربا مانتا إن آن فكرة اسوي جارسنو فكرة سو علشان ما دابا إنجليز كبحي يوروب maxaa inooga iman kara ayay inila tahay because iyaguna dan bay inagu qabeen inaguna dan baynu ku qabnay because haddaynu nahay soomaalina waxaynu nahay dee garab rarato marba meel baynu xiiseynaa u guurnaa dee hadda ingiriis baynu ku badnayn oo beryahan dambe joognay oo dee bastayaasha dhiganay marka hadda maadaama ay yurub ka baxeen maadaama yurub ay iyaguna ganacsi ku qabeen inaguna aynu ganacsi ku qabnay maxaa inooga iman kara inay la tahay maxaa sadcaalki la sadcaali jiray khasab hadda wax yar kadib waa hadda dee ha ka bixin laakiin weli lama kala guran intay la kala guranayaana waqti bay iska noqonaysaa intaa kadibna dee waxaa kusoo degaya ila tahay oo dee maadaama yurub ka bixeen waa fiiso uun in meel walba lagu galo marka waxa inooga iman kara ayaan rabnaa inaynu isweygaarsano oo isla wadaagno oo dee bal aynu isdhaafsano marka maadaama aynu ganacsi ku qabnay maadaama ganacsi inagu qabeen maadaama dad inooga sadcaali jireen maadaama dad iyaguna inooga iman jireen inaguna aan u tegi jirnay waxa inooga iman kara oo xuduudka ina saameyn kara inaynu iska ogaano ayaa iska qurux badan oo aynu isweygaarsano ma garateen marka maadaama iyaga dee xitaa qudhooda dad ingiriisa dee wadanada way ku baahsan yihiin hadday africa tahay hadday yurub tahay meel kasta way ku baahsan yihiin marka waxay u aadaan xitaa dadkan yurubtan yaryar xitaa waxay u aadaan oo dee badanka u doontaan sida greeg oo kale iyo cadceed iyo waxbay u doontaan oo u aadaan marka dee haddii la yidhahdo hala isxakameeyo ama ay adkeeyaan deganaashihii la deganaa yurubta kale iyo dee waxyaalo badan baa ka iman kara marka aqoonta inaan isweygaarsano ayaan jeclaaday marka wixii war ah wixii akhbaar ah inaynu isdhaafsano marka haddaynu nahay midda labaad ganacsatadana dee waxyaalo badan baa dadka ganacsatada uga iman kara because ganacsiga xoogiisu iyaguna way nooga iman jireen yurubna dee way u tegi jireen laakiin markaan anagu iska hadalno oon soomaali nahay ganacsigayga xoogiisu yurub wuxuu nooga soo degi jiray ingiriiska buu nooga soo degi jiray oo nooga iman jiray marka waxyaalo badan baa ka iman kara halkaas oo dee ka bahalkayeesmi kara maadaama cashuurtu xaggaa ka yaro fududeed oo xaggan cashuurteedu yaro qaali tahay waxyaalo badan baa ka iman kara marka walaalayaal inaynu waxyaalaha isweygaarsano oo dee fikradaha isdhaafsiisano ayaa dee ila qurux badan waxaan kaloo inii sheegayaa walaalayaal in aan keenay asxaabtayda inaan u sheego ku xidhan janankayga si ahaana kusii xidhan dukaankayga yar ku xidhan inaan u sheego timirtii oo kale inaan qaxwihii oo kale inaan keenay in insha allah wixii gaadha bishii barakeysneed nagu soo beegan tahay oo dee wixii gaadha loo diyaar garoobayo oo waxyaalaha horseedkoodii aanu bilownay inaan u sheegaan rabaa haddii ilaahay ka dhigo dahyadii fadhiga oo hurdada oo kale kuwii fadhiga oo kale inaan keenay inaan u sheegaan rabaa marka marba wixii dee cusub caalankaa jecel marka duu marba wixii cusub inaan inla wadaago ayaa dee ila qurux badan oo aan dee inii sheego marka waxyaalahaasaan doonayaa inaan inla wadaago caawa qofkay maalin u tahay qofkii habeen u tahay intaba dee janankayga markaad aragtid dee wixii fikrad ah waad soo qori kartaa waad ii soo gudbin kartaa dee ra'yigayguna hadduu khaldan yahay dee waad kasoo hadli kartaa waad kasoo bixin kartaa hadduu saxsan yahayna dee waad ka hadli kartaa marka dee waxyaalahaasaan doonaya walaalayaal inaan isweygaarsano businesskiina sidii baan dee weligu jirnaa waxaa kaloo ini farxad gelin kara janankayga oo aynii keenayaa dee mar walba ganacsiya waxaa kama hadli karno wax qosolana mar way inii soo dhexgelinaynaa oo way inii keenaynaa marka wax dee marba wixii cusubba caalanka jecela marba wax la xiiseynayo ayaanu dhexgelinaynaa fikradahana inaan isdhaafsano dee waxay ila tahay inay qurux badan tahay qof walaalkaaya ra'yiga adiga kaa maqan walaalkaagu ku jiraa marka dee anagu ganacsato weyn ma nihin laakiin ganacsatada yaryar haddaanu nahay yaa waxyaalaha ka iman kara
inaanu sii ogaano oo qofki walaalkayo aqoon nagu dhaama oo dee oran kara halkaa waxbaa kasoo siyaadaya dee inuu noo soo tuuro oo noo soo baaso ayaanu jecelnahay oonu ka faa'iidaysano marka dee qofkii dee kalenaba kaba sii fiican marka waxyaalahaasna rabay walaal inuu wadaago marka ayaamaha waynu kala mashquulsaneen waxaa weeye qofku markuu dee iska ilmi leeyahay ilmihii waxaasu iskaga yara mashquulsan yahay mar walbana dee markaan anigu inaga maqanahay dee dad unba inila jooga waxaa inila jooga wax ini farxad gelinaya oo inaga qosqoslinaya ayaanu inii keenaynaa oo de farxaddiinu waa farxaddayda marka anigu mar walba dhiirigelintiina ayaan wax ku ahay oo dee janankayga la-aantiin de anigu maba soo hadleen waxna ma ahaadeen marka farxaddiinu waa farxaddayda marka intaasaan doonaya walaalayaal inii sheego wax kasta ood u baahan tihiinna in wixii aan hayo oo de inaan inila soo wadaago ayaan jeclahay de waxaan u malaynayaa hadalka waynagu badiyeye de wixii fikrada aad fikradda ka dhiibanaysaan de xagga hoose iigu reeba wixii aqoonaad nagu kordhinaysaan de waad ii reebi kartaan dee gacmo furan wayni soo dhaweynaya aad iyo aad bayni soo dhaweynayaa asxaabtaydii hore asxaabtayda dambe intaba aad iyo aad bayni soo dhaweynayaa de wakaa ganacsigiina barti baanu ka haynaa yaa waa inaad marba yaa dee dukaanka xaysiis mar walba ma soo gelin karno because kastanku maasha allah dadka aad noogu yara badan marka mar walba wixii aanu keenay hore xaysiiska ma soo gelin karno marka waxaanu jecelnahay inta nala joogtaa iyo inta gobolada noo dhow joogtaaba dee ina cagta na soo yarageliso ayaanu jecelnahay wax dee ina qiimo geliyana inaga iibino ayaanu jecelnahay ma garateen marka waxyaalo badan ba isku hoos tuugan aanu lahayaa marka hana moogaan hana ka maqnaan dee walaalayaal wixii fikradana dee xagga hoose igu reeba waan salaamayaa waa umanajiibooni leh asxaabtii hore asxaabtii dambe intaba soo dhawaada walaalayaal